Waxaa maalmihii ugu dambeeyay baraha internetka qabsaday dagaalka saameynta yeeshay ee u dhexeeya Ilka Casaqays iyo Sharma Boy, kaasi oo saddexdii maalin ee u dambeeyay hadalhayntiisu ay baraha bulshada qabsatay. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa heesaha raabka ka dhigay dagaal iyo faataabakh aan meel gaadhin. Waxa uu dagaalkani noqday mid saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday oo qof kastoo caan uu ka hadlayay isla markaasina uu fikirkiisa iyo aragtidiisa ka dhiibanayay. Haddaba daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa sare ka qarsoon iyo muuqaalo sira ha yeeshee daawadaynta aan u gudagelin warbixintaasi oo dhammaystiran. Waxaan ku xasuusinayaa haddii aad tahay saaxiib cusub ugu horreyn inaad soo dhawaato oo subscribe saarto channelkeena, sidoo kalena aad gambaleelka furato si aad u noqoto saaxiib mar walba halkan jooga oo daawada muuqaalada xiisaha leh halkan soo gelino. Muuqaalkan aad daawanaysidna aad like saarto si uu u baaho u gaadho saaxiibo aad u tiro badan. Haddaba daawadayaal sidaad wada ogtihiin waxaa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ku faafay gaar ahaan aaladda internetka dagaalka saameynta yeeshay ee u dhexeeya shakhsiyaadka caanka ah waa Sharma Boy iyo Ilka Casaqays, kadib markii fanaanka caanka ah ee Sharma Boy uu soo saaray hees gabi ahaanba la magac baxday Moogi. Haddaba daawadayaal saad ku soo wada aragteen muuqaalkeena horaantiisii waa qayb ka mid ah heesta uu soo saaray Sharma Boy oo 2 maalin wax ka yar ku jirta baraha bulshada. Heestaasi oo dhalisay hadalhayn badan isla markaasina gabi ahaanba la sheegay in ay tahay hees karbaasha oo loo wada fanaanka caanka ama raabarka weyn ee Ilka Casaqays. Haddaba daawadayaal haddii aad eegto baraha bulshada ee dadku ku wada xiriiraan waxaa saddexdii maalin ee u dambeeyay laga qoray qoraallo aad u fara badan, waxaana laga sameeyay muuqaallo ciidaasi ka badan oo gabi ahaanba ka hadlaya dagaalka Sharma Boy iyo Ilka Casaqays, kaasi oo dadka caanka iyo dadka caqliga u saaxiibka ay gabi ahaanba ka hadlayeen hadalhaynta iyo fikirka iyagu hayaan. Haddaba daawadayaal sidaan wada ognahay waxaa maalmihii ugu dambeeyay dagaal saameyn leh uu ka dhashay dagaalka culus ee gabi ahaanba dhex maray Sharma Boy iyo Ilka Casaqays, kuwaasi oo ah laba raabar ama laba fanaan oo aad u taageero badan isla markaasina fanka Soomaalida marka la eego sanadadani ka mid ah ama ku jira 10 fanaan ee ugu sareeya. Haddaba maalmo yar ka hor waxaa hees soo qarxiyay isla markaasina daawaha ka soo qaaday fanaanka caanka ah ee Sharma Boy oo ku baashaalaya dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika. Heestaasi oo gabi ahaanba la sheegay markii tixraac lagu sameeyay dadka reaction-ka ka bixiyaan ay fikirkooda iyo aragtidooda ku sheegeen inay tahay karbaash toosa. Haddaba daawadayaal waxaa la sheegay inay heestani ku socotay raabarka weyn ee Ilka Casaqays, kaasi oo fanka Soomaalida ka taliya sanadadani halka Sharma Boy uu yahay fanaanka kaliya ee cunaqabataynta ku haya. Haddaba waxaa la sheegay in dagaalkani maalmihii ugu dambeeyay uu baraha bulshada qabsaday isla markaasina uu saameyn yeeshay isagoo baraha internetka dagaalkan mooyaane wax kale aanu qabsanin. Hadalhaynta ugu badan ee ka dhalatay inay ahayd saameynta dagaalkan uu yeeshay Ilka Casaqays iyo Sharma Boy ayaa sidaynu wada ognahay waxay yihiin laba fanaan oo aad u kala daaweyn, halka Ilka Casaqays uu yahay fanaan soo heesi jiray ilaa 2014 iyo wixii ka dambeeyay, Sharma Boyna uu yahay dadkii fanka galay 2018 iyo wixii ka dambeeyay. Si kastaba ha ahaatee fanaanka caanka ah ee Sharma Boy ayaa haddana noqday fanaan yeeshay taageero aad u tiro badan, kaasi oo ka mid noqday 10 fanaan ee ugu saameynta badan sanadkan 2022 oo dabayaaqa ama dhamaada. Haddaba fanaanka caanka ah ee Ilka Casaqaysna uu yahay fanaan isaguna aad u taageero badan, walow fanaanka caanka ah ee Sharma Boy cunaqabateyn ku hayo isla markaasina uu ka taageero badan yahay. Haddaba daawadayaal sidaynu wada ognahay waa markii labaad ay dagaal isku qaadaan Ilka Casaqays iyo Sharma Boy kadib markii gabi ahaanba ay soo gashay hawada warbixin uu sameeyay channelka caanka ah ee Cabdi Askari. Warbixintaasi ayaa gabi ahaanba ciwaankeedu ahaa ama ka hadlaysay keebaa ka taliya fanaanka Ilka Casaqays, Sharma Boy iyo Xariir Axmed Geeska Afrika. Haddaba waxaa la sheegay warbixintaasi wixii ka dambeeyay inay fanaaniintu dagaal culus isku qaadeen isla markaasina ay isweerareen. Haddaba daawadayaal sida inagu ka wada warqabno isla markaasina aynu kala socono baraha bulshada waxaa gabi ahaanba maalmihii ugu dambeeyay heesta uu soo qaaday Sharma Boy ay qabsatay baraha internetka, taasi oo la sheegay inay tahay karbaash toos oo ku socda fanaan Ilka Casaqays, kaasi oo ah raabar weyn isla markaasina ka mid ah raabarada loogu jecel yahay sanadadani. Fanaanka caanka ah ee Sharma Boy oo ku baashaalaya dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika maalmo yar ka horna ku tagay safar shaqo ayaa waxaa la sheegay inuu gabi ahaanba heestan u soo qaaday fanaanka caanka ah Ilka Casaqays. Heestani ayaa 3 maalin ilaa 4 maalin ku gashay 1 milyan, taasi oo noqotay mid gabi ahaanba baraha bulshada qabsatay oo gilgishay. Sidaynu wada ognahayna Sharma Boy waxa uu ka mid noqday fanaaniinta ugu fiyuuska badan isagoo baraajiyay fanaaniinta caalamka oo muddo 2 maalin ama 3 maalin ah ku galay heesihiisu 1 milyan. Haddaba daawadayaal fanaanka caanka ah ee Ilka Casaqays oo isaguna bootada aad ugu dheereeya isla markaasina ka mid ah fanaaniinta dhuunta waaweyn ee booteeya oo ay mar horena isqabsadeen Sharma Boy ayaa la sheegay inuu Sharma Boy heestan uga dhigay karbaash isla markaasina uu ugu talagalay raabarka caanka ah ee Ilka Casaqays.
siday doontaba ha ahaatee waxaa saddexdii maalin ee ugu dambeeyey baraha internetka qabsaday isla markaasina laga sameeyey warbixino aad u tiro badan oo qof kasta oo youtuber oo Soomaaliya oo yaqaana Sharma Boy iyo Ilka Casaqays uu ka hadlay dagaalka saameynta yeeshay ee dhex maray labadani fanaan. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay sidaan ku sheegnay muuqaalkeena horaantiisiina maxaa tahay sababta heesaha raabka looga dhigay dagaal iyo faatabakh iyo boota aan meel gaadhin. inta badan heesaha raabka waxa ay kamid yihiin heesaha markasta colaada iyo dagaalka uun ka sheekeeya ee aan ahayn heesaha ka sheekeeya nabadda iyo waxyaabaha la halmaala sida inta badan heesuhu ay yihiin jacaylka. haddaba daawadayaal saameynta dagaalkan ayaa noqotay mid maalmihii iyo saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada ku faaftay waxaana ay noqotay saddexdii maalin ee ugu dambeeyay mid laga sameeyay warbixino aad u tiro badan haddii ay noqoto Facebook, YouTube iyo aaladaha kale ee Soomaalida. si kastaba ha ahaatee heestan uu soo saaray fanaanka caanka ah ee Sharma Boy oo ku sugan dalkaasi Mareykanka iyo Ameerika ayaa noqotay mid hadal hayn badan dhalisay isla markaasina noqotay mid madaxa isku gelisay dad aad u tiro badan kadib markii uu fanaanku soo qaaday hees gabi ahaanba la sheegay inuu uga dhigay karbaash toosa Ilka Casaqays oo ah fanaanis hayaan. haddaba daawadayaal sida aynu ka wada warqabno fanaaniintu waxa ay markasta ka shaqeeyaan raabka kuwa siibaha raabka ku jira ee fanaaniinta raabka lagu tiriyo sida Ilka Casaqays iyo Sharma Boy kuwaasi oo markasta heesahoodu ka samaysan yihiin dagaal iyo waxyaabaha la halmaala. haddaba daawadayaal sida aynu ka warqabno fanaaniintani ayaa sanadkii horena weerar culus isku qaaday isla markaasina dagaalka dhex maray uu noqday mid baraha bulshada qabsaday sida laga wada warqabo waxaana maalmihii ugu dambeeyay uu xoreystay barta YouTube iyo Facebook oo gabi ahaanba hadal haynta lagaga hadlayay dagaalka culus ee u dhaxeeya shakhsiyaadkani caanka ee isku weeraray baraha bulshada waa Sharma Boy iyo Ilka Casaqays. haddaba daawadayaal waxa uu noqday hadal hayn saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsatay sida laga wada warqabana qof kasta uu ka hadlayay. haddaba heestani uu soo qaaday fanaanka caanka ah ee Sharma Boy ayaa waxa ku jirtay clip qayb kamid ah uu afka qalloocinayo sida baraha bulshada qabsatay muuqaalkiina aad ku wada aragtaan sawirka Ilka Casaqays uu qaniinsan yahay carabka ee uu soo galay ayaa uu Sharma Boy noqday gabi ahaanba mid uu ka sameeyay heestani waxaana uu ku jirtay erey ah macadayda maxaa uga dhacay afka saad ku wada aragtaan isla waqti xaadirkani shaashada uu idin saaran yahay muuqaalkani kani oo noqday mid baraha bulshada qabsaday. saameynta dagaalkan ayaa gilgishay aalada social media. haddaba daawadayaal halkaasi ayaan kusoo koobaynaa warbixintaasi aad ka xiisaha badan ee ka soo diyaarinay dagaalkaasi waxaan ku xasuusinaynaa haddii aad tahay saaxiib cusub inaad ku soo dhawaato boggeena YouTube ee Tebinta Toosan TV oo subscribe saarto sidoo kale aad gambaleelka furato si aad u noqoto daawadaha horeeya ee daawada barnaamijyada xiisaha leh ee halkan soo gelino muuqaalkan aad daawanaysidna aad like saarto si uu u baaho uu gaaro saaxiibaha tiro badan ku mahadsanid kamid ahaanshaha iyo kusoo biiritaankaaga barteena YouTube ee Tebinta Toosan TV la soco update-keena dambe oo nala jaanqaad.